Alex Lewis wuxuu ahaa nin caafimaad qaba oo ay dhamays yihiin dhammaan xubnaha jirkiisu. Wuxuu aad u jeclaa ilmihiisa yar iyo xaaskiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu isku arkay calaamado sidii duray oo kale ah. Uu dhayalsaday oo uma arkayn inay ku keeni karto dhibaato weyn. Kadib markuu dareemay inaanu ka soo reynayn ayuu ambulance dalbaday. Kadibna dhakhtarka loola cararay. Calaamadaha uu durayga u qaatay waxay ahaayeen kuwo ay keento nooc ka mid ah bakteeriyada, taas oo caadi ahaan si dhib la'aan ah ugu nool dubka sare ee maqaarka aadamaha. Bakteeriyadaas oo gudaha u gashay jidhkiisa kana soo weerartay. Alex ayaa wajahay mid ka mid ah xaaladaha caafimaad oo in la arkaa ay dhif iyo naadir tahay adduunka oo dhan. Xaaladaas caafimaad ayaa loogu yeedhaa toxic shock syndrome. Ninkan ayaa yeeshay xumad daran, dhiiggiisii oo hoos u dhacay, matag iyo shuban iyo dawakhaad, isagoo jidhkiisuna xubin u bakhtiyayey. Dhakhaatiirta ayaa qoyskooda u sheegay in dawada keliya ee noloshiisa lagu badbaadin karo ay tahay in laga gooyo dhammaan qaybaha jidhkiisa ee dhintay. Alex ayaa laga gooyey labada lugood, gacmaha, dibnaha si uu u sii noolaado. Hooyadii oo warbaahinta u warrantay ayaa sheegtay inaanay filayn inuu sii noolaan doono. Ninkan ayaa noqday mid gebi ahaanba nugul oo ku tiirsan cid kale. Inkasta oo isagoo nool la kala jarjaray jidhkiisa, haddana Alex wuxuu sheegay inay tani ka mid tahay waxyaabaha dadka nolosha ku soo mara, isaguna uu naftiisa u sheego mar walba wanaag, niyaddana uu hagaajisto. Dhakhaatiirta qalliinka quruxda samaysa ayaa isku dayey sidii ay Alex ugu buuxin lahaayeen meelaha madhan ee jidhkiisa sida faruuryaha, iyadoo laxaadka uu waayeyna beddelkooda loogu buuxiyey kuwa macmal ah. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee. haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.